بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxaan doonayaa inaan ka hadlo laba qodob. Qodobka hore waxa weeyaan taageero aan u muujinayo xisbiga mucaaradka ah wadani. Qodobka labaadna waa tacadiyo ayaamahan bal gula kacay oo cambaaraynayo. Markaan ku horeeyo hore ee taageerada shalay toole waxaan arkay meel macfalo la isugu yimid oo in Cabdilqaadir ka hadlayay oo uu sheegay in musabbixi oo kaliya musharaxiyay cid ka daba had kartaan aanay jirin. marka waxaan leeyahay arrintaasi waxba kama jiraan waa been cad. musharaxa rasmiga ah ee taageerada shacabka reer Soomaaliland oo dhan haysta waa Cabdiraxmaan Ciro, isagaan taageersanay, isagaan hiiliyahooba la garab taaganay. ninkaas kaligii ayaa iska hadlay, cid uu ku matala iyo cid ku raacsan midna ma jirto. arrintaasi waxa la wax ka jira ma jiraan, wax taageero oo deegaankan iyo dadkan iyo reer Soomaaliland midna u hayaan ma jirto. xisbiga kulmiye waxa la taageersay oo taageersanay xisbiga wadani. taa markaan intaa ku dhaafay taageerada waxa jirtay tacadiyo ayaamahan bal gula kacay xisbiga wadani oo ay kamid tahay xafiisiyo iyo guryo laga qaaday oo ugu dambeysay tii Gabiiley meesha nasiya la yiraahdo balanbal iyo sheekh. marka waxaan u sheegayaa in arrimahaasi sirta ka dambeysa ay tahay in xisbiga kulmiye uu doonayo inuu dagaal sokeeyo ka jiido wadankan. taana dadka iyo taageerayaasha xisbiga mucaaradka wadani waa inay iska fahmaan, waa inaan dhag jalaq loo siin, waa in kaararka codbixiyaasha la qaataa, waa in maalinta codbixinta codka loogu heliyo xisbiga mucaaradka ah ee wadani si aynu isaga dulqaadno xisbigan dulinka ku noqday shacbiga reer Soomaaliland ee hantidii ummadda boobay in waxba ka tagin. intaasaan soo jeedinayaa arrimahana waa daandaansi la doonayo sidii dadku u kici lahaayeen dagaal sokeeyo loo ridi lahaa doorashada halkaa ku baaqan lahayd. marka waxaan leeyahay arrimaha la iska fahmo, dhexdana hal xidho, kaarkana aad loo qaato. qofkaan kaarka qaadan waxba faa'iido u yeelanaya ma jiro, cid uu ridi karaana ma jiro, cid uu dooran karaana ma jiro. intaasaan soo jeedinayaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.